بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. درسنا وحكى بالعبانية آية 17 سورة النساء. الله وحيد سبحانه وتعالى إنما التوبة توبدي على الله كركيس أهي وإلهي إنه أقبله الله فضلقيس إسلقوا واجبيي للذين كوي أي أسقنات توبداس إلهي حقيس لغا أقبله يعملون كعمل فليه أو سمينيه السوء حمانتي سمينيه دنبقي وكدعيه بجهالة aqoon xumo iyo caqli xumo dembigu uga dhacayo suma dabadeedna yatuubuuna towbad keenaya oo ilaahay u noqonaya min qariibin meel dhow ilaahay uga laabanaya intaysan dhiman ka hor ilaahay u noqonaya fa ulaa'ika kuwaas yatuubu allaahu allah waa ka towbad aqbalaya calayhim korkooda wa kaana allaahu allahna wuxuu ahaaday caliiman allah cilmi badan xakiiman oo xikmad badan. walaysat uma ahaanin attowbatu towbadii uma ahaanin oo towbadooda la aqbali mayo liladiina kuwii yacmaluuna ku camalfalaya asayi'aati xumaanyaalihi xataa idaa xadara ilaa uu uga yimaado xumaantaas ayay wadayaan axadahum midkood almowtu geeridii ilaa ay uga timaado oo malakulmowtkii uu yimaado qaala markaasuu wuxuu odhanayaa markii naftu ay qabato innii anigu tubtu waa toobad keenay al'aana haddaan ilaahay u noqday oo allah u toobad keenay. kuwaas toobadooda la aqbali mayo. walaladiina kuwiina toobad ma leh yamuutuuna dhimanayay walxaale hum iyagoo kufaarun gaalo ah oo gaalnimadii ku dhintay ulaa'ika kuwaas dhammaantood actadnaa waxaanu u diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab aliiman xanuun badan oo xanuujinaya. waxaa inoo soo damaysay labadii aayadood oo allah kaga hadlayay subxaanahu wa tacaala dadka sinada ku dhacaya. ilaahay wuxuu soo yidhi aakhirkii aayadda dambe ina allaha kaana tawaaban raxiima. haddii ilaahay loo toobad keeno fain taaba wa aslaxa faacriduu canhumaa ina allaha kaana tawaaban raxiima. haddii ilaahay loo toobad keeno oo qofka addoonka ah ilaahay usoo laabto waa allah toobad aqbalid badan oo naxariis badan. towbadaas marka la aqbalayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan inoo ku sheegaya iyo towbadda aan la aqbalayn. allah wuxuu yidhi towbadda ilaahay xaggiisa laga aqbalayo oo ilaahay fadligiisa allah uu inoo caddeeyey oo isku waajibiyey inuu aqbalayo waxa weeye towbadda ay toobad keenayaan dadka macaasida la imaanaya oo xumaanta samaynaya arrintaasoo ay ka keentay bijahaala aqoon xumo ay ka keentay. jahaaladaasi ma aha tii cilmi la-aanta ahayd waa midii ahayd aqoon xumada iyo qofku markuu dembiga uu samaynayo inuu ahaa qof aan caqli lahayn oo garaadyaraan arintaas uu ugu dhacay. mujaahid waxaa laga wariyey inuu yidhi kullu man casa allaha khata'an aw camdan fa huwa jaahilun xataa yanzica can dembi. qof kastoo ilaahay caasiya oo rabbi caasiya ama dembigaas khad ahaan ha uga dhaco ama camdi ahaan ha uga dhaco waa jaahil, waa qof aan wax kala garanayn ilaa dembigaas uu ka foqo. qataadana wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yaquuluun kullu denbin asaabahu cabdun fa huwa jahaala. dembi kastoo addoonku aseebo oo addoonka ka dhaca caqli xumo wey. marka waa jahaaladii caqli xumada ahayd ee ma aha tii aqoon darrada keliya ah. maxaa yeelay qofku marka dembigan uu ku dhacayo ilaahay jalaalkiisa iyo weynidiisa ayuu ilowsan yahay oo meel kaga dhacaya. dhinaca kalena ciqaabka dembigaa ka imaanaya isagoo og oo xusuusan ayuu haddana dembigii ku dhacaya. marka waa qof wax u dhiman yihiin. ilaahay wuxuu yidhi dabadeedna kuwaasi waa kuwa ka toobad keenaya min qariibin meel dhow. meesha dhow waxaa loo jeedaa intuusan geeridu intaanay u imaan ka hor
maxaa yeelay qof kastoo nool geeridu waa u dhowdahay maxaa yeelay kullu aatin qariib wixii imaanaya mustaqbalka imaanaya wax dhow wey waana sida xadiis saxiix ah nabiga uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inna allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay addoonka toobadiisa waa aqbalaa inta naftu halkaas aanay ka soo gaarin halkaa markii naftu soo gaadho haddii qofkii waxaa la tusayaaba meeshuu u socday janno iyo naar malaa'igtiibuu arkaya markaas toobad la aqbalayaa ma jiro wixii markaa lagu hadlaa waa waraan qiimo lahayn markaasaa loo jeedaa qofka geeridu markay u timaado oo arko adduun inuu ka socdo oo maxaanku ihahda uu wax kala ogaado markaas toobadooda kaas intaa ka hor wey toobadda intaas ka hor waa la aqbalaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala allah waa allah ogaal badan oo cid walba waxay ku sugantahay ilaahay waa ogyahay waa allah xikmad badan oo wax kasta oo uu xukumo iyo wax kasta oo ku hadlo xikmad bay ku fadhiyaan aayadda kalena ilaahay wuxuu inoo ku sheegay dadka toobadooda aan la aqbalayn waa laba qolo markii naftu qabatay markaa yidhi laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah iyo tubtu ila allah kuwaa toobadooda la aqbali maayo maxaa yeele waa waqtigii la rabay ka hor inay toobad keenaan kuwa labaadna waa kuwa gaalnimo ku dhintay hadday maalinta qiyaamada yidhaahdaan ilaahay waa kuu toobad keennay oo weligood calaacalayaan toobadooda laga dhegaysan mayo mar haddii markii hore gaalnimo ay ku soo dhinteen inama towbatu towbadda cala allaahi allah korkiisa ah oo ilaahay agtiisa laga aqbalayo liladiina kuwiiba u sugnaatay yacmaluuna samaynaya assuu'a xumaanta samaynaya oo dunuubtu ay ka dhacayso bijahaalatin xaala kownihim jaahiliin iyagoo aqoon xumo ay u geysay dunuubtaas uma dabadeedna yatuubuuna noqonaya min qariibin meel dhow ka laabanaya inta naftu aanay qaban ka hor ayay toobad keenaya iyagoo xay ah fa ulaa'ika kuwaas yatuubu allaahu allah waa ka toobad aqbalaya calayhim korkooda ilaahay baa ka toobad aqbalaya kuwaasoo toobadooda allah waa aqbalaya wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday caliiman allah cilmi badan xakiiman oo xikmad badan walaysat uma ahaanin atowbatu towbaddii la aqbalayay uma ahaanin liladiina kuwa yacmaluuna ku camalfalaya asayi'aati xumaantii macaasidii bay iska dhex dabaalanaya xataa idaa xadara ilaa uu uga yimaado axadahum midkood almowtu geeridii ay uga timaado qaala markaasuu wuxuu odhanaya innii anigu tubtu waa toobad keenay al'aana hadda ayaan ilaahay u toobad keenay waa toobaddii fircoon oo kale wuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil markuu haftay oo arkay inuu tegey ayuu ashahaatay waa tii lay markaas al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad leedahay adigoo ka hor caasi aha oo ilaahay caasiyey mufsidna aha lagama aqbalin markaasoo kale marka toobadda ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala walaladiina kuwiina toobadooda ilaahay aqbali mayo yamuutuuna dhimanayay walxaale hum iyagoo kufaarun gaalo ah mar haddii qofku kufri uu ku dhintayna isaguna toobad ma leh ulaa'ika kuwaas actadnaa waxaanu u diyaarinay labadaa qayboodba lahum iyaga cadaaban cadaab aliiman oo aad iyo aad u xanuun badan allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina waray kuwii aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu xalaal idiinma aha lakum idinka an tarithuu inaad dhaxashaan annisaa'a dumaradii karhan si khasab ah aad ku dhaxashaan oo aysan raalli ka ahayn walaa tacduluuhunna dumaradii ha meermeerinina oo inay cid kale guursadaan ha ka meermeerinina ama kuwii aad qabteen oo aad nacdeen furiinkii ha ka meermeerinina litadhabuu si aad ula tagtaan oo aad u qaadataan bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen oo meherada ahaa qayb ka mid ah ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooye dumaradii bifaaxishatin foolxumo inay la yimaadaan mooye zino iyo afdheeri ama wax kaloo aan loogu dulqaadan karin inay la yimaadaan mooye foolxumadaasoo mubayinatin cad oo lagu caddeeyey markaas ninkii inuu yidhahdo reerka adaa bi'iyaye haddee isfuro waa u bannaan tahay markaas allah wuxuu yidhi wacaashiruuhunna kula dhaqma dumaradii
bilmacruufi si wanaagsan ula dhaqmo fain karihtumuuhunna dumaradii haddaad nacdaan facasaa mudan an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay wayajcal allaahu walxaal yajcal allaahu ilaahay idiin gelinayo ilaahay idiin yeelayo fiihi shaygaa dhexdiisa khayran khayr kaiiran oo fara badan ayaa dhici ka dhah oo haddaad wax yar saburtaan awlaad iyo dad badan oo khayr qaba ilaahay idinka siinayo wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas inaad bedel qaadataan oo xaas cusub aada soo guursataan makaana zawjin xaas horoo idiin joogay booskiisa intaaad mid hore furtaan inaad mid kale guursataan haddaad doontaan oo wa aataytum aada siiseen ixdaahunna middood macnaha tii hore oo aada qabteen oo aada rabtaan inaad fudhaan markii hore aada siiseen qintaaran xoolo aad iyo aada u fara badan falaa ta'khuduu ha ka qaadanina minhu xoolaha markii hore aada siiseen xaggooda shay-an waxbana ha ka qaadanin oo hawhunguriyoonnina ata'khuduunahu maalkaas ma qaadanaysaan buhtaanan xaal uu yahay dulmi iyo xaaraan musabid isagoo ah wa ihman iyo dembi mubiinan oo cad wa kayfa sidee baad ta'khuduunahu xaaskiinnii waxaad siiseen aada dib ugu noqonaysaan oo aada u qaadanaysaan mar kale walxaale qad xaqiiqe ah afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum gabalkiin ilaa bacdin gabalkii kale uu gaaray idinkoo nin iyo xaaskii isu noqday oo kulmay oo xaqeedii markaas uu u wada waajibay oo waakhadna ay qabteen minkum idinka xaggiinna xaasaskii miihaaqan cahdi haliidan oo adag ay idinka qabteen oo ah ballantii ahayd fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan allah subxaanahu wa tacaala aayadda hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ka xarimay dumaradii inay u dhaxlaan si khasab ah aayaddan sababu nusuul ayay leedahay sida imaam bukhaari raximahu llahu tacaala ibnu cabaas uu ka warinayo wuxuu yidhi kaanuu idaa maata arajulu kaana wliyaa'uhu axaqa bimra'atih in shaaa bacduhum tasawajaha wain shaauu zawajuuha wain shaauu lam yusawijuuha fahum axaqu biha min ahliha fanasalat haadihi alaaya jaahiliyadii dhaqankooda wuxuu ahaa haddii nin uu xaas ka dhinto xaaskaas waxaa dhaxli jiray sida xoolaha looga dhaxlayo oo kale xigtadiisii ayaa dhaxli jidhay markaasay hadday doonaan iyagoo guursanaya hadday doonaanna cid kale ayay u guurinayeen hadday doonaanna waxay odhanayeen cidiba ma guursan ka dhaba si xoolihii ay u dhaxlaa oo gabadhaas dadkay ka dhalatay iyagaaba kala wareegayba oo xaq dambe kuma lahayn markaas ayaa aayaadkan ilaahay soo dejiyey si dhaqankaa faasidka ah loo burburiyo bini aadamku ma ogtahay maal jacaylka iyo lexjeclaxumadu wax badanoo xun bay u geysaa oo arrintan waxaa keenayay gabadhaani xoole ay leedahay ama meher badan bay horey u qaadatay ninkii ayaa dabeedna ka dhintay meher badanna waa ka baxay xoolena way leedahay markaasay odhan jireen sida xoolihiisa aan u dhaxallay ayaan iyadana u dhaxallay hadday doonaan waa guursanayaan hadday doonaan cid kale u guurinayaan meher badan iyagu ka qaadanaya oo gabadhii meher dambe la siin mayo hadday doonaan waxay leeyihiin maya cidiba guursan maysaba weligeed ilaa ay ka dhimanayso cidina uguma imaan jirin riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin qof ka mida warasadiibaa go' saarsanayay go' buu ma garanaysaa saa ugu ridanayay wax dambe u soo dhowaanaya ma jiraan isagaa iska yeelanaya dhaqankaa xun ayaa ilaahay ku xarimaya subxaanahu wa tacaala innaga soomaalihan dhaqankaasi meel buu xoogaa saamayna ka leeyahay waa waxa la yidhaahdo dumaasha nin baa dhimanaya xaas buu ka tegayaa ama ka badan dadkii qoyskiisa ahaabaa xaq isu siinaya ama walaalis ama xigtadii kale inay iyagu gabdhahaas ama gabadhaas guurkooda ay leeyihiin hadday cid kale agtooda ay soo madhana waa kala dhimasho reerkii baa lagalaa la odhanayaayo belaayaa dhacday mararka qaarkood waxay gaadha arrintu xataa in la isku dilo oo dhibaato badan arrintaas ay keento marka waxaa weeye waa liilan jaahiliyadii ka mid a arrintaas sax maaha gabadha haddii ninkeedu dhinto xor weeye
weligeedii iyo iyada ayaa taladeedu u taalla ciddii iyadu ay doonto oo weligeedu ku nikaaxiyo ama ha ahaado ninkii dhintay xigtadiisa ama cid kale ha ahaado xor weeye lama oran karo xagga iyo xagga soo mariya cid kale ma soo mari karno xataa bahahan isu ogolayn wax kale iska daayay oo ninka dhintay bahdiisii bah aan ahayn nin kale oo bah kale hadduu xataa gabadhii damaaciyo waa lala diriraya maxaa ka soo doontaa la leeyahay wax kale iska daayay marka nooc jaahiliya weeye haddii oo waa dhaxalkii ilaahayna ka reebay subxaana watacaala qoftii waxay ka dhigayaan sidii waxay dhaxleen oo kale oo cid kale agteeda aanay mari karin waa masaladii xaaji cali cabdiraxmaan ilaahi u naxariistay la yidhi nugaal buu uga tegey qisadaas nin sida la warinayo nin baa wiilkiisii gabar geel uga bixiyey ilaa maxaan ku idhahda geel badan habeenku aroosaa wiilkii dhinta markaasuu geelii gabadhiiba iskule maxaan ku idhaahdaa geelii ka teg gabadhiibu markaas gurigiibu isagu u dabamaray wiilkiisu ka dhintuu caawo gala shiikhii baa loo sheegay wuxuu yidhi ruuxa kan xaaraan wey waa markay baxday diinta alle dantay ma oga waa arrintuu nugaal uga guuray baa layidhi xaaji cali cabdiraxmaan ilaahi u naxariista marka waa tanoo kale waa nooc jaahiliye ah qofkii inuu dhaxloo yidhaahdo xoolii badan baa igaga maqane gabadhaan sii dayn mayno allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markaas kadibna dumarkii ha meermeerinina si aad u qaarataan oo aad ula tagtaan wixii aad siiseen qayb ka mid ah arrintii horena waa suurtagal qaybtan mid kaloo cusubna waa soo gelaysaayo tii hore waa suurtagalo in la leeyahay dumaradaas inay guursadaan ha u diidinina haddaydana idinku guursanayn si xoolahoodii qayb ka mid ah aad u qaarataan oo aad u dhaxashaan ama waxaaba loo jeedaaba dadkii muslimiinta ahaa oo magaranaysaa caadiga ahaa xaaskii aad qabtay haddaad nacdid oo aad heshiin weydaan oo adigu aad nacdid oo iyadoo eedda aanay lahayn inaad fudhid ha ka meermeerin adigoo markaa odhanaya haddaadan xoolahaaga isku furan ama xoolo badan aadan isiin ku furi mayo taas ayaa iyadana ilaahayna kaga nahayaya subxaanahu wa tacaala oo mar haddii ninku xaaska uu naco si fiican waa inuu usii daaya fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan inuu yidhahdo inaad xoolo isid mooye mana dhaqayo mana dhigayo taa wey midda layna kaga reebaya allah wuxuu yidhi inay la yimaadaan mooye xaasaskii wax fool xun xaaskii zinay ku dhacday ama sida culimmada qaarkood ay yidhaahdeen afdheeri bay la timid iyo naashisnimo iyo arrin aan waxaan lagula noolaan karin markaa ninku inuu yidhahdo reerkii adaa bi'iyaye reerkii adaa nacaye dee xoolo isku furo haddii kale kusii dayn mayo markaas waa bannaan tahay maxaa yeeley eedda iyadaa iska leh markaas kadib allah wuxuu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarkii si wanaagsan ula dhaqmo walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf cid walba waxaa laga rabaa xaqa lagu leeyahay inay gudato maro badan baa nebigu ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dumarka in si wanaagsan loola dhaqmo waxaa ka mid ah xadiiskii khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli ragoo qofka idinku fiicani waa qofka reerkiisa ugu fiican anigaana reerkayga iyo xaasaskayga idinku fiican saan u dhaqaaleeya buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka si wanaagsan ula dhaqma baa ilaahay haddaad wax ku nacdaan baa ilaahay yidhi xaasaskiinni waxaa laga yaabaa inaad ragow nacdaan wax khayr badan ilaahay idiin gelinayo waa dhici kadha mar qofku intuu caroodo markaas inuu sabro oo reerkii uu daayo reerkii aanu furin dabadeedna awlaad badan oo saalixiin ah iyo khayr badan ilaahay kala siiyo way badanta maalinta qofku xanaaqo hadduu yidhaahdo 3 baan kugu furay sida dadka in badan hadda ay sameeyaan khayr badan baa laga yaabaa ilaahay garanaysa uu siin lahaa meesha inuu ku dhaafo ilaahay marka wuxuu leeyahay sabra waxaa laga yaabaa waxaad nacdaan khayr badan ilaahay agtiisa inuu idinku jiro oo khayr badan meesha ilaahay idinka siinayo waa tii xadiis saxiixa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yafruk mu'minu mu'minatan in sakhida minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar nin yuusan gabar nicin qof mu'mina gabar mu'mina yuusan nicin maxaa yeelay hadduu dabeecad ku naco dhaqan kalaa laga yaabaa wanaagsan ayaa qofku leeyahay oo lagu hayn karo ayuu leeyahay marka hal meel keli ah qofka ha ku wada nicin oo ha ku wada cayrin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aayadda labaad haddii aad damacdaan xaas hore inaad iska fudhaan si aad xaas kale u soo guursataan idinkoo xaaskii hore xoolo badan siiyey maadaama eedda idinku aad leedihiinoo gabadha adigu aad nacday wixii aad horey u siisay oo meherka ah
haka daba teginina wax ka mid ah haka qaadanina xataa waxaad siiseen hadduu yahay qindaaran xoolo aad u fara badan ilaahay wuxuu yidhi maadaama idinku gabadhi aad nacdeen haka daba teginina waxna haka qaadanina ma waxaad qaadanaysaan buhtaan baa ilaahay yidhi waa dulmi iyo xaaraan miyaad qaadanaysaan dembi iska cad maxaan ku idhaahdaay iyo wax ilaahay xaggiisa laga xarimay miyaad qaadanaysaano aad ku dhacaysa see baad u qaadanaysaan waa istibcaad iyo tacajub see u dhici kadhaa gabadhii waxaad siiseen inaad ka daba tagtaan iyadoo waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo jirkiinu isgaaray wax weyn wey mardii ninkay xaaskiisu gurigii ay wada degdegaan wax badan baa dhex maray hadhow ninkii inuu ku hungaro xumoodo ku saqajaamo waxoogaagii uu siiyey lama rabo maxaa yeelay mar haddii la kulmoo la wada dego dee meherkeedii oo dhan xaq bayba u yeelatayba kulligiis waata inuu soo mar ninkii wax ka mida kama daba tegi karo iyagoo mar kale ilaahay wuxuu yidhi ballan adag idinka qabta ballantaasi maxay tahay waa lagu fasiray fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan maxaa yeelay caqdiga marka la ridaya badanaa waxaa lagu ballamaa gabadhaas ama si wanaagsan u hay ama si wanaagsan u sii daa sidoo kale xadiiskii nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo macnihiisu ahaa istawsuu binnisaa'i khayran fainakum akhadtumuuhunna biamaanati illaah wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah taasna waa cahdi dumarkii wax wanaagsan si wanaagsan ula dhaqma maxaa yeelay ilaahay ammaanadiisaa ku qaaratay waxaad ku xalaashateen ilaahay kelimadiisa waa cahdi adag culimada qaarkood waxay waaba caqdiga maxaa yeelay caqdigu waa ballan adag ninkuu ballan qaadayo gabadhaas ilaahay hortiisa inuu dhaqaalaynayo oo aanu ku xadgudbayn yaa ayuha aladiina waray kuwii aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu xalaal idiin ma aha lakum idinka an tarithuu inaad dhaxashaan annisaa'a dumaradii karhan si khasab ah markii ninkeedii uu dhintay gabadhii inaad si khasaba idinku kula wareegtaan arrintaasi xalaal idiin ma aha waa idinka xaaraan walaa tacduluuhunna dumaradii ha meermeerinina oo inay cid kale xataa guursadaan haddaydana idinku rabin ha u diidinina litadhabuu si aad u qaadataan bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen qayb ka mid ah xoolaheedii meherkeedii si aad uga daba tagtaan ama kuwiiba idinku aad qabteen haddaad nacdeen oo aad idinku aydaan rabin inaad fudhaan ha ka meermeerinina si xoolaheedii wax ka mid ah ay idinku ogolaato oo meherkii qayb ka mid ah ay idinku soo celiso ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooye dumaradii bifaaxishatin foolxumo mubayanatin oo cad zinadiina waa lagu fasiray wixii kaloo dhaqan xumo ah oo qofta aan lagula noolaan karinna waa lagu fasiray marka hadda reerkii iyadaa bi'isay oo khaladay hadduu marka ninku yidhaahdo adaa reerkii bi'iyey haddee isfuro markaas oo u bannaanta allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wacaashiruuhunna kula dhaqma dumaradii bilmacruufi si wanaagsan kula dhaqma fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan dumaradii facasaa waxaa mudan oo dhab ah oo xaqiiqo ah ragow an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay inaad karahsataan walxaali qad xaqiiqe ah yajcalu allaahu iyadoo ilaahay uu idiin gelinayo fiihi shaygaas dhexdiisa iyadoo ilaahay uu idinka yeelayo khayran khayr kaiiran oo fara badan wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas inaad furtaan aad bedel qaadataan macnaa xaas cusub inaad soo guursataan makaana zawjin xaas hore oo aad qabteen booskiisa mid horeu ninku furaya mid kaluu rabaa inuu soo guursado tii horena xoogaagu siiyey waa ka hunguri qaba oo wa aataytum aad siiseen ixdaahunna middood macnaha waa tii hore oo aad rabta inaad fudhaan ayaa waxaad siiseen qindaaran xoolo aad u fara badan meherku inuusan xad lahayn ayaa halkan culimmadu ay ka qaateen inkastoo ay sunno tahay in la yareeyo oo meherkii nebiga aan laga badin calayhi salaatu wasalaam laakiin wax allaale wixii lagu heshiiyo xooluhu inkastaba ha noqdeene waa ku bannaanta falaa ta'khuduu ha ka qaadanina minhu meherkii xaggiisii shay-an waxba ha ka qaadanina qindaarkii iyo xoolihii badnaayo aad siiseen wax ka mid ah ha hunguriyeynina ata'khuduunahu ma qaadanaysaan xoolahaas meherkii ma waxaad ka damaaciyaysaan buhtaanan xaal uu yahay masabid isagoo dulmi ah oo xaaraan ah oo wax aydan xaq u lahayna miyaad qaadanaysa waidman iyo dembi mubiinan oo cad
wakayfa sideebaad ta'khuduunahu aad u qaadanaysaan meherkii xaaskii aad siisan sideebaad ugu noqonaysaan walxaali qad xaqiiqe afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale waa kinaayatun can iljimaac sida culimmadu ay u badan yihiin waa kulankii wa akhadna ay qabteen xaasaskii iyagoo qabtay minkum idinka xaggiina miihaaqan ballan haliidan oo aad iyo aad u adag oo aad loo adkeeyey waa caqdigii iyo heshiiskii la wada galay si wanaagsan in loo wada dhaqmo ama si wanaagsan loo kala tago ballan adag baa la wada galay wakayfa sideebaa ta'khuduunahu aad u qaadanaysaan walxaali qad xaqiiqe afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale iyadoo macnaha jirkiina uu isgaaray weye wa akhadna ay qabteen minkum xaggiina miihaaqan ballan haliidan oo adag allah wuxuu yidhi walaa tankixuu ha guursanina ragow maa dumaradii nakaxa ay guursadeen aabbaa'ukum aabbayaashiinni oo min annisaa'i dumaradii ah ilaa maa qad salaf wixii hormaray mooye ilaa maa shay mooye qad xaqiiqe salafa horay u dhacay intii wakhtigii jaahiliga iyo gaalnimada lagu jiray mooye taas ilaahay waa idiin dhaaf innahu guurkaas qofku uu guursado aabbihiis xaaskiisii uu furay ama uu ka dhintay kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo ayuu ahaaday waa zina waa waxaan marna xalaalahay wa maqtan caro ayuu ahaaday caro weyn oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ilaahay u caroonay wasaa waana xumaaday guurka noocaasi sabiilan wada la maro wax dhaqan laga dhigtana isagaa xurimat waxaa la xarimay calaykum korkiina ragoo waxaa la idinka xarimay ummahaatukum hooyooyinkiinnii idin dhalay wa banaatukum gabdhihiinnii aada dhasheen wa akhawaatukum gabdhihii walaalihiin ahaa wa cammaatukum eedooyinkiin wa khaalaatukum habaryarihiin wa banaatul akhi walaalkii gabdhihii uu dhalay oo ninkuu adeerka u ah wa banaatul ukhti walaashii gabdhihii ay dhashay oo ninku abtiga uu ah wa ummahaatukum hooyooyinkiinnii baa la idinka xarimay allaatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin nuujiyey idinma dhalin laakiin naaskoodaad nuugteen iyaguna guurkooda waa idinka xaaraan maxaa yeele hooyay noqotay mardii caanaheedii la nuugay wa akhawaatukum gabdhihiinnii walaalaha ahaa min aradaaca nuugmadii xaggeedii walaalaha idinkula ahaa ayaa iyaguna xaaraan idinka ah hooyadaad nuugtay gabadhii ay dhashay oo iyaduna naaskeeda nuugtay ama gabarh kaleba ha ahaato aanay dhalin oo naaskeeda aada wada nuugteen walaashiin bay noqoto waa idinka xaaraan wa ummahaatu nisaa'ikum dumaradiinnii hooyooyinkood ayaa xaaraan idinka ah waa sodohihii wa rabaa'ibukum gabdhihii xaasaskiinnu ay dhaleen oo nin kale ay u dhaleen ayaa xaaraan idinka ah allaatii gabdhahaasoo fii xujuurikum dhabihiinna ku sugnaa guryihiinna ku suganoo guryihiinna ku noola gabdhahaasoo min nisaa'ikum xaasaskiinna xaggooda ka ahaaday allaatii xaasaskaasoo dakhaltum aada la guri gasheen bihinna iyaga fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum kuwo la guri galay bihinna hooyooyinkii hooyadii gabadhaa dhashay haddaydaan la guri gelin falaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma saara inaad gabadheedii guursataan hooyadii caqdi keliyuu ku xiray iyagoon isarag buu furay gabadheedii markaas waa guursan kara laakiin gabadhii mar haddii caqdi uu ku dhaco ninka yaysanba is-arage hooyadeed weligeed waa ka xaaraan wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinnii kuwii xalaasha u ah ama kuwii la deganaayo oo xaasaskooda ah iyaguna weligood waa idinka xaaraan wiilka aad dhashay gabadhuu mar nikaaxiyey waa ku daysay alladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabaradiinna xaggooda ka ahaaday oo idinku aad dhasheen wiilkii qofku uu sheegtay oo isaga abtirsaday sidii jaahiliyadii ay samayn jireen ama haddaba gaaladu ay sameeyaan oo uusan dhalin kaa isagu kuma jiro xaaskiisii waa la gursan karaa wa an tajmacuu ayaa ilaahay idinka xarimay inaad kulmisaan oo nikaax aad ku kulmisaan bayna alukhtayni laba gabdhood oo walaalo ah dhexdood inaad hal mar wada qabtaan iyadana waa laydinka xarimay
ilaa maa qad salaf wixii horay u dhacay mooye taa ilaahay waa idiin dhaaf intii waqtigii jaahiliga lagu jiray in allaha allah kaana wuxuu ahaaday ghafuuran allah dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan waalmuxsanaatu dumaradii la qabay waalmuxsanaatu kuwii dhowrsoonaa oo guur ku dhowrsoonaa oo min annisaa'i dumaradii ah iyaguna waa idinka xaaraan haween nin kale qabo ama nin kale ciddo ugu jidha ma guursan kadhaan iyadana ilaa maa kuwii mooye malakat ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinnu ay hanteen oo addoonnimo idinku soo galay mooye niman kaleba markii hore haba qabeen mardii gaaladii laga qabsaday haddee xalaal bay noqonaya allah wuxuu yidhi kitaab allah ilaahay farad yeelidiisii weeye calaykum korkiinna ilaahay idinku farad yeelay oo ilaahay idinku qoray dumaradaas inay xaaraan idinka yihiin wa uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka maa waraa'a daalikum intaa la soo sheegay wixii ka dambeeya oo intaas ahayn ilaahay waa idiin xalaaleeyey marka laga reebo intii nebigu uu ku daray calayhi salaatu wasalaam haween iyo eedadeed ama haween iyo habaryarteed isku mar in la wada qabo an tabtaguu ayaa ilaahay idiin xalaaleeyey intaa waxaan ahay inaad ku raadisaan aad ku dalabtaan biamwaalikum xoolihiinna inaad ku dalabtaan oo aad meher aad u bixisaan aad ku guursataan muxsiniina xaal aad tihiin kuwa dhowrsoon oo zino ka dhowrsoon hayra musaafixiina kuwa mina shubaya oo zina ku dhacaya hayrkood xaal aad tihiin fama stamtactum wixii aad ku raaxaysataan bihi kaas minhunna xaasaskaad guursateen xaggooda mar haddaad la guri gashaan faatuuhunna siiya ujuurahunna meheryaalkoodii siiya isagoo dhammaystiran fariidatan arrintaasina jaangooyin weeye ilaahay xaggiisa laga jaangooyey farada allaahu fariidatan ilaahay baa farad yeelay dumaradii meheradoodii inaad siisaan walaa junaaxa wax dembi ahi calaykum korkiinna idinkama saara fii maa shaygii taraadaytum aad raalli isaga noqotaan bihi kaas min bacdi alfariida jaangooyntii meherka la jaangooyey ka gadaal wixii aad isu daysaan ama aad isu kordhisaan waa idiin bannaan tahay wax dembigii korkiinna idinkama saar in allaha allah kaana wuxuu ahaaday caliiman allah ogaal badan xakiiman oo xikmad badan aayaadkan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo ku tiriyey dumarka ninka xaaraanta ka ah inuu guursado haweenta haddee ragga xaaraanta ka ana halkaasay ka soo baxaysaa laga fahmaya iyadana ugu horeyn allah wuxuu yidhi ha guursanina aabbayaalkiin wixii dumarkii ay guursadeen marna ha guursanina waxaa gaar looga hadlay oo muxaramaad kale aan loogu darin dhaqan xun oo carabtii jaahiliyada ah ay yaqiineen bay ahay marka uu odagu dhinto xaaskiisii wiilkiisii inuu guursado oo ka haysto sidaas daraaddeed ayaa si gaara ilaahay u sheegay foolxumadeedana ilaahay inuu ku sheegay ilaahay wuxuu yidhi ha guursanina xaasaskii ay guursadeen aabbayaalkii waa aayadii aabbuhu kii qofka dhalay oo keliya ma ah awowgii waa aabbe awowgii labaad waa aabbe awowga hooyo waa aabbe meesha qof kasta oo ragah oo qofku uu ka farcamay xaas uu mar nikaaxiyey xaaraan bay ka noqotay uma dhowaan karo waa aaye ama dadka qaarkiis eedu siday yidhaahdaan ilaahay wuxuu yidhi wixii hormaray mooye jaahiliyadii wixii dhacay ilaahay waa idin dhaaf laakiin hadday wixii ka dambeeya arrintaa iyaysan idinka dhicin guurka noocaas ilaahay wuxuu yidhi waa faaxisha waa zina wax aad u foolxun weeye waa caro ilaahay qofkaas uu caroonayo wax dhaqan laga dhigto waxa u xun weeye qofka guurka noocaas ku kaca mar walba waa dil culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waaba lagu ridoobaya hadduu xalaashado haddee warba kama joogan wakhtigii nebiga way dhacday calayhi salaatu wasalaam nin buu u diray markaas ninkii warkaa lagu maqlay wuxuuna u diray inuu isagana soo dilo xoolahana uu ka soo qaaday weliba ninkii xaaskii aabbihiis u dabamaray aabbihiis baa dhintay markaasuu xaaskiisii u dabamaray oo guri la galay nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ciidan baa nebigu usoo diray waka
وحديث كان أحمد أياه ورني براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وحو إلى أذيرك بقى إصامري الحارث بن عمير الأورنجري يسوق بنديرة وطه وحانا بنديرة دا أسو قنتي أو أسو ديبي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كاسان كو يريبو إلى أذيرو حقو صعطة وحو يري نبي قا إصود دري ومحو كو صود دري وحو إيصود دري بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه نبا نبي إيصود دري أبيه حاسكيسي قدام مري وقرسدي إنا نصرك كسو قوي marka ninkii waxa ku dhaca waa dil loo kaadin may Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala markaas kadib xurrimat waxa la xarimay alaykum korkiina aayadan marka Ilaahay wuxuu inoo ku sheegay marka aayadii hadda lagu daro maxaan ku dhahay dadka muharramaadka dhamaan waxa ka maqan oo kali ah oo nabigu uu raaciyay alayhi salatu wasalaam gabar iyo eedadeed iyo gabar iyo habaryarteed nikaax in lagu kulmin karo intii kale aayada Ilaahay ku cadeeyay todobo xagga nasabka way bi qofka xaraan kaga yahay oo aayada Ilaahay inoo ku tirinaya subhanahu wa ta'ala afarna qofka sodohnimo ay xaraan uga noqdaan guur baa keena xaraannimadaas waa mid hadda inuu soo marnay aayada waa xaaskaaga hooyadeed waa xaaskaagu gabadhii ay dhashay waa wiilkaagu gabadha uu nikaaxsaday adigu sodogaad u ah waxa kale oo aayada lagu sheegay nuugmada xaggeedana laba qof inay ku xaraamoobaan hooyadii ninku nuugay iyo gabadhii iyaduna naaskaas la nuugto walaashiis noqoto laakiin sunnada waxay ku tadhay shan kale oo nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam yahrumu min ar-radaa'i ma yahrumu min an-nasab intii nasabka xaraanta ku ah ayaa nuugmadana xaraan ku ah oo waxa weeye caanaha kan ninkii lahaa gabadhii nuugtay aab u noqday waa ka xaraan maxaan ku yiraahdaayay caanahaas wiilku nuugay ninkii lahaa walaashiis eeday u noqotay waa ka xaraan hooyada caanaheeda uu nuugay walaasheed hawreed bay u noqotay waa ka xaraan gabadha naaska uu la nuugay ama wiilka naaska uu la nuugay gabadha caruurta midna adeer buu u noqday midna abti buu u noqday waa ka xaraan intii nasabka xaraanta ku ahayd ayaa nuugmadana xaraanta ku noqonaysa nuugmadu hadda shuruudihii laga rabay waa inay kulansatay ilmuhu markuu naaska nuugayo 2 sano waa inuusan gaarin ilaa 5 jeerna ugu yaraan naaska waa inuu nuugaayo khiyaarkiis isagu uga baxa sida xadiiskii nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam حرمت وحا الله حرمي عليكم كركينا أمهاتكم هو يوينكيني إذن دالي قف كسته أو دمره أو قفك وكسو فرعمي وهو يدي كل شيء أيدي آب أيدي هو يوي وبناتكم قبلهني قبل قف كسته أو لدقه أو نينك كفر عنتي وقبليس تو يسابو دالي قبليس تيدا شيء ويلكي ستو دالي قبليس يوي وأخواتكم ولاله صدح ذاها ولاشي هويو ولاشي أبكري لوداكتي ولاشي أبي هويو لوداكتي وعماتكم إيدوينكي محانكو هذا إيددي محانكو هذا أبي لدلتي تي رضاع حتى واتين هذا يشيغني واسوق ليس وكاس أو قف كسته إيددان waxa loo jeeda qof kasta oo dumar ah oo la dhalatay qof kasto rag ah oo aad ka farcantay aabe haweentii la dhalatay waa eed awoow inaga ayaynu niraahdo tii la dhalatay waa eed awoow labaad tii la dhalatay waa eed awowga hooyo tii la dhalatay maxaan ku raahdaa ayaynu iska niraahdo laakiin waa eed ilaa qof laba ka farcantay bay la dhalatay waxa soo dhan baa soo hoosgelay wa khalaatukum habaryarihi saasoka habartuna waxa weeye qof kasto oo dumar ah oo adigu aad ka farcantay qoftii dumar oo la walaal ah hooyo walaasheed ayay walaasheed أيضا نحن كساكت مادو وكا وبنات الأخ ولالكي قبله علي يوحي كفر عمي يقول نصاصو كلوي وبنات الأخت ولاشي قبلها هذا الشيء وننك أبتغى أوها يقول نصاصو كلوي لها وإذن كحرم وأمهاتكم هو يوينكي نما حاران إذن كأه الله تي هو يوينكاسو أرضعناكم إذن نوتيي وناسكو ذا أدنوكتين وأخواتكم إيا قبله ولاله إنكوها من الرضاعة نوغمدا حقيدا تي هذه لدلتي تا لغا هدلمay waatayna soo marnay waa midii aan aabi uusan la dhalin
naaska unbaa isukiin keenay ama hooyada naaskeeda aad nuugtay ha dhasho ama nin kaleba ha dhalo marda naas wada nuugteen gabadhaasi walaashaabay noqotay shantii kalena sunnadaa ku dadhay wa ummahaatu nisaa'ikum hooyooyin ee xaasaskiinna hooyooyinkood ayaa xaaraan idinka ah waa sodohdii mar haddii gabadhii ninku nikaaxiyo hooyadeed waa ka xaaraan mar dambe uma dhowaan karo allah ee warabaa'ibukum ayaa xaaraan idinka ah gabdhihii xaasaskiinnu ay dhaleen oo rabiibah waxaa loo yidhi haddii ninka korinayo badanaaba ninka adeerka u ah sida inagu aynu ku magacowno gurigiisay joogtaayo hooyadeed qaba allaatii gabdhahaasoo fii xujuurikum guryihiinna ku sugan qaydkan culimmadu waxay yidhaahdeen laa mafhuuma lahu sida qaalibka ah unbaa la sheegay oo gabadha hooyadeed ayaa badanaaba haysata oo ninka hooyadeed qaba gurigiisay joogta laakiin haddaydan weligiin israg oo xaaska oo gabadhay dhashay mashriq iyo maqrib aad ku kala nooshihiin waa kaa xaaraan oo min nisaa'ikum dumaradii xaggooda ka ahaatay dumaradii min nisaa'ikum dumaradiinnii ay dhaleen gabdhahaas allaatii dumaradaasoo dakhaltum aada la guri gasheen bihinna iyaga fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum kuwa la guri galay bihinna hooyadii gabadhaa dhashay hooyooyinkii falaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma saara an tankixuu alrabaa'iba gabdhihii rabiibooyinka ahaa inaad gursataan macnaha waa kala duwan yihiin haddii mar gabadha la nikaaxiyo ninku yaanuba la guri gelin hooyadeed abadi waa ka xaaraan sodoh bay noqotay laakiin ninku hadduu hooyadii nikaaxiyo oo isagoo aan la gurigelin gabadheedii uu u bogo oo hooyadii uu furo mana taaban waxna kuma darsan gabadhii markaa waa nikaaxsan kara laakiin hadduu hooyadii la guri galo gabadhaas iyaduna waa ku daysay saasuu kala duwan yihi sida aayadda ilahayna ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala taqriiban waana ijmaac arrintaas culimmada qaar baa maxaanku idhahdaa istinaha waxay u celiyeen xataa maxaanku idhahdaa gabadhi oo yidhi gabadha haddaan lala guri gelin hooyadeed waa la guursan karaa laakiin warkaas iska tuur waxba kama jiraan allah wuxuu yidhi waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinnii gabdhihii la deganaa oo macnaha xaasaskooda ahaa ama xalaasha u ahaa waa gabadhaa sodohda u ahayde iyaguna waa idinka xaaraan mar haddii wiilku gabar uu nikaaxiyo waa ku daysay gabadhaas yuusanba la gurigelin ninkaasi sodog buu u noqday uma dhowaan karo alladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabaradiinna xaggooda ka ah qaydkan maxaa loo raaciyey waxaa lagu burburinayaa dhaqankii carabtu ay lahayd oo ahaa odagu ninku wiilku iska qaato wixii tabaniga la ohan jiray gaaradan hadda aad u sameeyaan ninku ilmo uu wiiluusan dhalin intuu soo qaato inuu yidhaahdo anaa aabba u ah sidii waqtigii hore zayd ibnu xaarisa loo ohan jiray zayd ibnu muxamed ilan addoonku xoreeyey buu ahaa nebigaa marka calayhi salatu slam tabaniyey laakiin aayaadkii ilaahay uu ku xarimay arrintaas oo suurat alaxzaab baynu ugu tegi doona markii ilaahay soo dejiyey waa tii arrintaas lagu xarimay ninku ilmo aanu dhalin inuu ku abtirsado si marka dhaqankii loo burburiyo ahaa ninku ilmo aanu dhalin xaaskuu guursaday ninku inuusan guursan karin waaba tii nebigu uu guursaday calayhi salaatu wasalaam zaynaba binti jaxshi oo xaaskii zayd ibnu xaarisa ahayd oo weliba ilaahay baa toos ugu guuriyey weli kale iyo cid kale midna looguma yeelin si dhaqankaas xun oo jiray loo burburiyo sidaas daraad baa ilaahay yidhi min aslaabikum ilmihii aad iska sheegatid oo adigu aadan dhalin xaaskiisii waa guursan ka dhal wa an tajmacuu ayaa ilaahay idinka xarimay inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba gabdhood oo walaalo ah inaad guur isugu keentaan ama isku hooyo ha ahaadeen ama aabbe iyo hooyo ha wadaageen ama aabbe keliya ha wadaageen laba gabdhood oo walaalo ah guur laguma jamcin karo laakiin mid hadday ka dhimato ama mid uu furo tii kale hadda waa guursan karaayo xiskiisanka waxaynu nidhaahno weye ilaa maa qad salaf wixii hormaray mooye iyadana ilaahay waa idiin dhaaf in allaha allah kaana wuxuu ahaaday kafuuran allah dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan waalmuxsanaatu ayaa xaaraan idinka ah dumaradii oo min annisaa'i dumaradii ka mid a muxsanaadka qur-aanka dhowr macnay ku soo arooreen waxaa ka mida meeshaan oo kale sida culimmadu ay yidhaahdeen waa almutasawijaat
dumarada la qabo nin kale uu qabo ama nin kale ciddo ugu jira nin kale uma dhowaan karo. muxsanaad waxay kaloo qur-aanka ku soo aroodhay isla safxadan hadda inoo imaanaysa iyadoo loo jeedo alxaraa'ir gabdhaha xorta ah. mar kale waxay soo aroodhay iyadoo loo jeedo alcafiifaat gabdhaha dhowrsoon oo zina iyo xumaan ka dhowrsoon. islaamnimada laftigeeda waa lagu fasiray almu'minaat kulli waa u tegi doonaa insha allahu tacaala. ilaa maa malakat kuwii ay hanatay mooye aymaanukum midigyaalkiin, oo haddii gaaladii lala dagaalamo oo dumara laga soo qabsado, dumaradaas haddii addoommay noqdeen, markaas ciddii saamigeedu uu ku dhacay ama soo qabsatay ayaa iska leh. ciddada unbaa laga saaraya, hal xayd ayaa lagu beriyeelaya riximkeeda, dabeedna ninkaas addoontiisi bay noqotay waa u xalaal. kitaab allaahi ay kataba allaahu kitaaban, kitaab allaahi ilaahay faradyeelidiisii weeye, calaykum korkiinna uu idinku waajibiyey arrimahaas inay xaaraan yihiin oo loo dhowaan karin. ilaahay baa dushiinna ku qoray, lama taabtaan weeye. in allaha wa uxilla waxaa la xalaaleeyey, ragoo waxaa la idin xalaaleeyey lakum idinka maa waraa'a daalikum intaa wixii ka soo hadhay oo dumara ah waa idin xalaal. waxaa nebigu ku daray oo keliya calayhi salaatu wasalaam aljamcu bayna almar'ati wa camatiha wa bayna almar'ati wa khaalatiha. haween iyo eedadeed iyo haween iyo habaryarteed guur la isuguma keeni karo. weliba gabadha iyo aabbaha habaryartiis ama hooyada habaryarteed ama hooyada eedadeed saasoo kale wey. waa dhexaasa mar inta la isku khalday ee arrintaas ay dhacday, marka sax ma ah. xataa maxaan ku idhaahdaa gabadha ayeeyadeed islaantii la dhalatay ama awoogeed islaantii la dhalatay lama akeeni karo. tan hadduusan furin tan kale ma soo guursan karo. an tabtaquu baa ilaahay idin xalaaleeyey inaad ku dalabtaan intaas wixii aan ahaynoo dumar ah biamwaalikum xoolihiin inaad ku guursataan, muxsiniina xaalaatihiin kuwa dhowrsoonoo zina ka dhowrsoon, hayra musaafixiina kuwo zina shubaya sifaaxa sidiisa biyaha la daadiyaa la yidhaah. qofku markuu zina ku dhacay ujeedadiisu waxaa weeye biyahaasun meelun ku daadi. taas baa ilaahay leeyahay ka taxadiro iska ilaaliya oo dad dhowrsoon oo zina aan ku dhicin marna noqda. fama stamtactum wixii aad ku istimtaactaan, wixii aad ku raaxaysataan bihi kaas minhunna dumaradii xaggooda aad kaga raaxaystaan, macnaha aad la degtaan oo ninay xaaskiisa aad wada noqotaan, fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meheradoodii siiya, fariidatan waana mid la farad yeelay oo ilaahay xaggiisa ayaa sidaas looga farad yeelay. meeshaan fama stamtactum bihinna minhunna culimmada qaarkood ama culimo badan baa waxay ku fasireen mutcadii wakhtigii hore xalaasha ah oo ninku inuu haween guur kula heshiiyo muddo kooban, xoogaa dhaqaalaana uu siiyo, hadhowna ay kala tagaan. ayaamihii hore wakhtigii nebiga calayhi salatu wasallam xalaal bay ahayd, weliba mar bay xalaal ahayd misna waa la xarimay, mar kale waa la xalaaleeyey. ugu dambayntii xadiis saxiixa ayaa nebiga ku xarimay calayhi salaatu wasalaam mutcada noocaas. maxaa yeelay waa guur mu'aqad ah, guurka wakhtiga lehna shareecadu ma banaynoo lama ogola. fatxulmaka ayaa la xarimay sida axaadiista qaarkood ay caddaynayaan. riwaayadka qaarkoodna ilaa xajatulwadaac ayaa la xarimay, magaranaysa riwaayadka qaarkoodna waa laga fahmay. taasi marka culimmadu ku fasirin, laakiin waxaa loo badan yahay taas ma aha waa isla waxaa laga hadlayaa haweentii sida caadiga ahayd ninku u guursaday. haddaad la guri gashaan ujuurtooda iyo meheradooda siiya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. arrintaasina waa fariida, waa jaangooyn iyo faradyeelid ilaahay xaggiisa ka ahaatay. walaa junaax wax dembi ahay calaykum korkiina ma aha fii maa taraadaytum waxaad raalli isaga noqotaan bihi kaas min bacdi alfariida jaangooyntii ka gadaal. haddii ninku uu yidhahdo war meherku waa kugu yaraa ayaantiiye qof fiican baa tahaye intaasaan kuugu daray, waa bannaanta. hadday gabadhi tidhaahdo warniyahow dhaqaale ma haysatide 10,000 oo aad igu mehersatay 5 waa kuu daayey, haddee waataynu soo maray fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluu hanii'an marii'an tii weye. in allaha allah kaana wuxuu ahaaday caliiman allah ogaal badan, xakiiman oo xikmad badan. allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman lam yastadic qofkaan awood u lahayn minkum oo idinka idinka mid ah, qofkaan karin dowlan
hodontinimo darteed aan awood ugu lahayn an yankixa inuu guursado almuxsanaati gabdhihii xorta ahaa. haddeer waxaynu soo haynaa almuxsanaat oo loo jeeday almutasawijaat. hadda almuxsanaat alxaraa'ir weeye, gabdhihii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ah. inuu guursado qofkaan awood u lahayn falyankix ha guursado mimaa kuwii xaggoodii ha ka guursado malakat ay hanatay aymaanukum midigyaalkiin oo addoommada ah, oo min fatayaatikum gabdhihiinnii ka mid ah almu'minaati ee mu'minaadka ahaayo addoon gaalo ah lama guursan karo. wallaahu allah ayaa aclamu u ogaal badan biiimaanikum iimaankiinnana xaqiiqadiisa ilaahay baa og. maxaa waxa qalbiga ku jira allah unbaa og. bacdukum qaarkiin addoomo iyo xorbaba min bacdin qaarka kale xaggooda ayaad ka ahaateen, idinkaa kala farcamayo isdhalaye haddii la idiin xalaaleeyey shareecaduna idiin ogoshahay waxba ha nicinina. fankixuuhunna gabdhahaas addoomaha ah guursada ragow biidni ahlihinna ehelkoodii idankooda ku guursada. sayidyaalkoodii ciddii gabadhaa sayidka u ahayd oo iska lahayd idankeeda ku guursada. wa aatuuhunna siiyana ujuurahunna meherhoodana siiya. oo hore ha odhan waa addoone meherkii ku yaray ha odhane meherkooda caadiga ahna siiya. bilmacruufi si wanaagsan meherhadooda u siiya. muxsanaatin xaalay yihiin gabdhahaasi kuwa dhowrsoon, iyaduna waa shardi. kuwa cafiifaad ah oo dhowrsoon waa inay yihiin. hayra musaafixaatin kuwo zina samaynaya oo zino ku dhacaya daahiroo muuqata waa inaanay ahayn. walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiib hoosaad kuwa yeelanaya ay la sinaystaanna waa inaanay ahayn. oo gabdho dhowrsoon waa inay yihiin. faidaa uxsinna haddii ay dhowrsoonaadaan ay binnikaaxi guur haddii gabdhaha addoomaha ah ay ku dhowrsoonaadaan oo la guursado. fain atayna hadday markaas kadib la yimaadaan bifaaxishatin foolxumo hadday la yimaadaan oo zino ay ku dhacaan facalayhinna korkooda waxaa ah nisfu maa kii barkiis cala almuxsanaati gabdhaha xortaa korkooda ahaa oo min alcadaabi xadkii ah. boqolkii jeedal iyaga waa loo kala barayaa oo konton baa lagu dhifanaya. daalika xukunkaas ah nin xorihi gabar addoonah inuu guursado oo loo ogolaaday liman qof buu u sugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata zino inuu ku dhaco ka cabsaday minkum xaal uu idinka mid yahay. wa an tasbiruu inaad sabirtaan oo gabdhaha addoommada ah guurkooda aad ka sabirtaan ayaa khayrun idiin khayr badan lakum idinka ragow. maxaa yeelay caruurtiibaa addoomma kaa noqonaysa. hal ninka la leeyahay waxaan ku idhaahdaayey ninkii haddee ciddii loo rimiyo hashaa ninkii lahaabaa iska leh. wallaahu allah gafuurun allah dembi dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis badan. aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xalaaleeyey sideeda ninka ee xorta ah haddii uu awoodi karo oo uu hayo meherkii iyo kharashkii uu ku guursan lahaa gabar xor ah, addoon inuu guursadaa uma bannaana. in shuruudahan aayadda ilaahay uu ku sheegay la helo mooye markaasay u bannaan tahay. shuruudahay ku bannaan tahay waxaa ka mida kow waa inuusan awooddii dhaqaale waa inuusan haysan dowlan. shardiga labaadna waxa weeye gabadha addoontaahi gabarh mu'minadah oo ilaahay rumaysan waa inay tahay. gabarh gaalad ah noocay tahayba oo addoona lama guursan karo. shardiga kale waxa weeye aayadda ku cad iyaduna gabarh dhowrsoon oo dhowrsooni lagu ogyahay waa inay tahay oo zino aan lagu baran. shardiga kale waxa weeye ninku zina waa inuu ka baqa, naftu waa inay qabata oo isiraadaadan xalaal raadin zinaad ku dhacaysa, markaasaa la ogol yahay addoon inuu guursado. shardiga kale aayaddaa lagu sheegayo addoontaa ciddii iska lahayd waa inay u guurisa, la carari mayo ama la bixi mayo. sidoo kale gabdhihii haddii xorta ah iyagana saasoo kale weeyo dadkii xigtadooda ahaa la-aantood ama weligeedii la-aantiis lama guursan karo. intaasoo arrimood markii ilaahay inoo sheegay haddana ilaahay wuxuu yihi inaad saburtaan
oo gabdhihii addoomaha ahaa guurkooda aad ka saburtaan ayaa idiin khayr badan. maxaa yeelay gabar addoon ah ninkii guursada caruurtay dhashay sayidkiibaa iska leh, waa addoommo iyaguna. maxaa yeelay addoonnimadu hooyaday raacaysa. marka waa inaad ka garataayoo say xor kuugu noqdaan qiimihii uu kugula heshiiyo waa inaad ka siisata. marka waa khasaaro mar haddii carruurtaadii addoommo nin kale leeyihiin ay noqdeen, haddee waaba khasaaro weyn wey. marka iskaba ilaaliya baa ilaahay yidhi oo ka safraa ilaahay leeyihi. laakiin zino waa waxune haddaad ka baqdaan shuruudahaasna la heedo, ilaahay wuxuu yidhi waa idin xalaal subxaanahu wa tacaala. waman lam yastadic qofkaan awood u lahayn minkum xaaluu idinka mid yahay qofkaan karin dowlan horontinimo qofkaan karin meherkii iyo kharashkii kaloo reerku u baahna an yankixa ka bedel inuu guursado qofkaan awood u lahayn dhaqaala yari darteed almuxsanaati gabdhihii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaayo ilaahay inuu guursado awood waa u waayey, dhaqaalihii ayaa gaarsiin waayey. fa mimaa malakat aymaanukum falyankix qofkaasi ha guursado mimaa kuwii xaggoodii malakat ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinu ay hateen addoomihii dadka kale ay lahaayeen oo min fatayaatikum gabdhihiinnii ka mid ah addoomaha ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ah. addoonta la guursanaya mu'minad waa inay tahay. wallaahu allah ayaa aclam uu ogaal badan biiimaanikum waa jumlo muctarida ah. haddee iimaanka inagu dadka uun daahirkaasaan u rumaynayna loo raacaya, laakiin xaqiiqada qofka qalbigiisa waxa ku jira inuu yahay mumin iyo inuu yahay munaafiq ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. bacdukum qaarkiin min bacdin jumladaanna mubtada ah kan iyo khabarkaana bacdukum qaarkiin bacdin qaar kale xaggoodaad ka ahaatee. waxaa loo jeeda haddiiba dantu idinku kaliftay oo ilaahay idiin baneeyey gabar addoon inaad guursataan, ha ka faaninina oo ha iska weyninina oo ha xaqiirinina. maxaa yeelay bini aadan baa tihiin, bini aadanna waa isdhaleen, idinkaa kala farcay, meel kale kama imaane, bini aadan idinkoo kala awey. fankixuuhunna guursada biidni ahlihinna eheladoodii, macnaha dadkii iska lahay saydiyadoodii idankoodii ku guursada. wa aatuuhunna siiya gabdhahaas ujuurahunna meheryaalkoodiina siiya. waa addoonoo meher yar baan siinaya ama wax siin mayo ha orannina. bilmacruufi si wanaagsan dhaqankaa meesha ka jira gabdhaha addoomaha waxaa lagu guursado ku guursada. maanta maba haynaba muxsanaatin xaalay yihiin gabdhahaasi kuwa dhowrsoon oo zino ka dhowrsoon, hayra musaafixaatin kuwo zino ku dhacaya oo maxaanku rahda zino daahira ku dhacaya xaal aysan ahayn, kuwa waa inaanay ahayn. walaa mutakhidaati akhdaani zinada ayaa laba siyood u dhacda. dad zinada ma qarsadaane guryay u furtaano waa caan, dadna saaxiib hoosaad bay leeyihin oo dadka ma garanaysaa waxaa la yidhaahdaa xoolaha leh iyo dadka magaca leh iyo madaxda iyo dumarhooday marar ka dhacda. saaxiib hoosaad bay leedahay, hoos heshiis kala tahay cidina ma oga. labada nooc miday tahayba nooc walba hadde waa zino. gabdhahaasi labadaa midna waa inaanay ahayn. zina daahirana waa inaysan samayn, mid saaxiib hoosaad ay la wadaagaanna waa inaanay samayn. akhdaan waa jamcu khidni, saaxiibka hoosoo nin iyo waxaa jira ilaa zinada qofna wixii allaale wixii doonabaa ma garanaysaa wax ku darsada. dadna si gaar ah oo iyagu keliya is og yihiin bay xumaanta u sameeya. labaduba zinaa weeye. faidaa uxsinna meeshaana ilaahay wuxuu kaga hadlay gabdhahaas addoomaha ahi haddii la guursado oo dabadeed zina ay sameeyaan. gabdhaha horta waxaa la ogyahay iyagoo nin leh gabadhu zina ay ku dhacdo waa la rajminaya, laakiin gabdhaha addoomaha ah iyagu marna rajmi ma leh. maxaa yeelay rajmigu waa dilo ma kala qaybsami karo. boqolkii jeedaloo gabadha aan la guursan lagu dhifanayay haddii zino ka dhacdo ayaa loo kala barayaa oo 50 ayaa lagu dhifanaya. meeshaani intaas ayaa cadaysa. faidaa uxsinna haddii ay dhowrsoonaadaan gabdhihii addoomaha ah oo guur ay ku dhowrsoonaadaan. culimmada qaarkood meeshaan aayadda qaybteeda hore waa ka gooyeeno waxay yidhahdeen uxsinna bilislaam, gabdhihii addoomaha ahaa hadday soo islaamaan. fain ateen faaxishatan hadday faaxisho la yimaadaan facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab. oo marka haddii islaamkii lagu fasiro ixsaanka
macnuhu wuxuu noqonaya gabadha adoonta ah oo gaalada ah dee haddii xataa maxaan ku idhaahdaa dee nin muslimah uu leeyahay ilan wuu yeelan karaaye milkilyimiin waa ku yeelan karaaye xad laga qaadi mayo laakiin marka maxaan ku idhaahdaa ay soo islaamto marka ayaa xadkii barkiisa laga qaaday laakiin macnaha loo badan yahay ibnu kaiirna uu rajaxay raajixan insha allahu tacaala waxa weye faidaa uxsinna binikaaxi baa loo jeeda facalayhina korkooda fainateen hadday la yimaadaan markaas ka gadaan bifaaxishatin foolxumo zina hadday la yimaadaan facalayhina korkooda waxa ah nisfu maa kii barkiis cala almuxsanaati gabdhaha xortaa korkooda ahaa oo min alcadaabi cadaabkan meeshan waxaa loo jeedaa xadkii waa boqolkii jeedal nuskiis ayaa lagu dhifanaya waa konton daalika maxaa yeelay dee rajmi haddii la yidhahde rajmi ma kala qaybsami karo waxa kala qaybsami karaa waa jeedalka daalika xukunkaas daalika waxay u noqonaysaa bannaanaantii addoon la guursado liman qof buu u sugnaaday bannaanaantaas khashiya ka cabsaday alcanata zina inuu ku dhaco minkum xaaluu idinka mid yahay canadka siisa waxa la yihahda qofka marka intii laftu jabto oo la kabo misna mar kale uu jabo dhib badan baa qofkaasi ku dhacay marka zinadu saasoo kale weeye waa jab iyo jab qofka waxa weye dhib badan baa gaaraysa adduun iyo aakhiraba marka qofkii zina ka baqa qofkaa weye qofka loo ogol yahay addoon inuu guursado oo ka baqa hadduusan guursan addoon xorna ma guursan karo zina inuu ku dhaco wa an tasbiruu inaad sabirtaan oo addoomihii aad ka sabirtaan guurkoodiiba ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka sida caruurtii addooma aana idinka noqon wallaahu allah gafuurun allah dimin dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis badan wabilaahi towfiiq wsala allahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin